السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي ما في عنتهين رمضان مبارك. ما أنت حونو مرويا شنو مرعاوة مركا صاحبيالو إن وحربا قرآن كنتوني مرا إنا ويديو محاهيسين أنيغا وقتي بدنا أسكال سو عياري أو أن بشر رمضان لأنو حان سمين جري إنا أقريو 3 جزء 4 جزء انتو أبضن إنا أقريو وحاكو مشغول سنان جري jikada iyo raashin unbaa ku mashquulsanaa iyo daal marka hadeertaaneetod hurdada ka kacay amrigeyga anigoo intaan maraya hurdo ka kacay oo hal lug qabriga ugu jirta yani waxaan dhahaa waqtiga waa ii dhamaaday adduunka hadaa konton iyo intaad sii joogtay maxaa la dhahaa waxa ku hore aad u yaryahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam 63 ku dhintay marka inta adduunka sii jooga aad u yaryahay amri dheer cibaado suubani caafimaad allah idin siiyo anagana allahna siiyo marka saaxiibayaal quraanku dadaala جسدي ووضاني مالين كستبه هل جزء أقرياء صلاة الفجر كبعدي إلهي وإيفو ذي رب سبحانه وتعالى وحنك بريانا إذك إنه تصني يقفو ذي مركا فرحات دم ملين كرتيز مركان صباح كستو هالك جزءان دميو جير كلام ويدباحنا فرحضوا إلى دباحنا ملين كرتين مركا صاحبيال وحاربا ما أنت قصة أذين لو ذاقايو وحواي وحكا دعنا عاسية تونيسيا آبا إيهويو باوحي دالين لابا قبضوت قبض دوين شاء إتباسا جرتا gabadha waxaa la yiraahdaa qufraan ala dhahaa magaceeda marka aabaha wuxuu ahaa hooyada guri joogtay iska ahayd aaba fiican qabay oo wax kasto iyo waxay jeceshaa gurigeeda uu keenayo hooyo aamina la dhahaa hooyo aamina guriga iska fadhisay naag waxay ahayd oo adduun korkeeda asaarnaan wixii loo keenay cunto adduunyadeedan ee gurigaas ninkeeda iyo labada ilmood ka dhigatay marka maalmaha kamid ah odageeda baxay wuxuu aaday magaaladu aaday gaariga wataa gaarigiisu qaatay magaaladu aaday gaari kala imaaday wuu ku dhacay gaariga kalena asaa qalad ka lahaa marka odagii meesha ku naf waayay meesha marka waxaa dhacday waxaa loo soo dhiciyay in oo lacag aad u fara badan in la siiyo reerkii maadaama odaga ka dhintay oo ciddaan dhan isku haystay reerkii waxaa la siiyay lacag aad u fara badan marka waxaa dhacday marka odayga waa ka dhintay hooyo lacag badan haystaa gabdhaheeda haysataa marka ma haysato nin oo guriga u jooga ama meelaha usoo socda ma haysato qof banaan aadamaha markastaba waxay ku fikirta marka wiil yaro xaafadda waxaa imaan jiray wiil baa xaafadda imaan jiro xaafadda meesha degan dariska ah gabadhoo la sheekaystaa 15 jirka way ku qosashaa way u fiirsatay gabadheedii wiilkeeda inay iska helooyin qosol ay ku jiraan marka maalinay wiilka hoos ka wacday waxay tiri kaali wiilkaygii soo fariiso wiilka magaciisa waxaa la dhahaa zakariya waxaa la dhahay soo fariis inta wuu soo fadhiista zakariya waxaa la dhahay haye gabadheeda waa la sheekaystaa waa arkay gabadheeda maxaa la dhahaa 15 sano jirtaa way yar tahay marka haddii aa rabtid inaa guursato gabadheeda waan ku siinayaa markaas wuxuu yidhi aniga ma shaqeeyo lacag ma haysto wax aan maxaa la dhahaa gabadha aan ka dhiibane gacanteeda kuma jiraan marka saas daraaddeed eedoy ma guursan karo waxay tiri wax allaale waxaa u baahan tahay guur labis gabadha dahabka loo xiri lahaa labiska aad ay xiran lahayd kii ayada ay xiran lahayd arooska waxa dhan anaa qabay tiri waxaan rabaa gabadheeda inay ii guursato maadaama adi iida aad wada sheekaysanaysiin iska qoslosiin inay ii guursato aan rabaa gabadheeda ii xarooto anagaa nala degaysaana wax dhib ma jiro alaabtaa ku jiifa laheedeen wax kasto anay iga diyaar tahay alaa ay xaal wiilka waayaa wuxuu yidhi gabartaan maxaa laga qarinoyaa oo maxaa la dhahaa oo ay nafteeda oo maxaa la dhahaa ku jiro gabadhan magaalada may kusoo wareegto ciyaar suuq may soo noqotay gabadhaaneeto dad may raacday gabartan adiga waxaa galay waswaas ibn aadan waa iska taqaaniine waswaasaa galay ninkii marka waswaaska uu galay wuu soo fikiray wuu soo dedejiyey noloshiisii wuxuu yidhi gabadhan wax alaali waxay tahay waa ceeb astura hooyadan iyo gabadheeda wax alaali problem kasta ay qabaan waa u ceeb asturaya sababta anigane lacag ma haysto gaajaan ahay maxaa la dhahaa shaqo ma haysto lacagtaaneetod ciddaaneetodne reerka ka dhintay aabihii ka dhintay way u sheegtay wax dhan aabihii ka dhintay meeqa lacaga la siiyey laakiin ma u sheegin laakiin waxay u sheegtay in ay lacag haystaan oo dhinacaas ay ugu timid aabihii dhintay in laga siiyey lacagtii oo maxaa la dhahaa insurance-ka ahayd oo laga siiyey alaa ii taxaal wiilku wuu fikir wuxuu yidhi in faa'iida ugu jirto iyagana faa'iida ugu jirto ana faa'iida ugu jirto yalla waa guursanaa yidhi gabadhiyo maxaa la dhahaa waxay tiri hooyada waxay tiri 1 milyan oo lacagtooda
fartay ka saartay waxay tiri hay jidkaada ku dhacay waxaa samaysaa isoo diyaari dharkaagii adduunyadaadii iyo noloshii wixii ku qabsan lahayd isoo diyaari dhab oo siista maleenkiisii waa la gooyay ninkii ceriya dhul meeloo ka baxay kaaleba adiga sheeg waa la waayay maalmo dhan la waayay marka dambe heshoo yimid xaafadda yimid markaase waxay tiri zakariya maxaa dhacani adiga balanaa laheene balanta waxay ahayd inaa gabadhaan gursado wax soo gadatide maxaa la dhahaa isku imaan oo programka aan qabane intee ka baxde wuxuu yidhi eedoy waa kaa cabsaday eedda aamino hee waa kaa baqay sababto ah lacagti markaa inta kala baxay saas kala baxay tuuga inay heshay ee igaraacday ee lacagtan iga qaadatay acuudu billaahi tiri saas mi ahaa waxba ha ka walwalinay tiri amarka ilaahay ku dhacday in la dhacay lacagtii anaa kuu haaya lacag haba iiga walwalin waxay siisay malyan kale haddana farta ka saartay waxay tiri soco tago soo iibsa wixii oo lagaa rabiyo dhan arrimaha dhan soo qabo waa kaasaa anagana gurigii wixii aan firaashaynaa arooskiiyaan maxaa la dhahaa aan digaynaayo adduunyadii balaama tutoosinayna haye markaan wuu baxay arooskii mauna ka dhuumanin wixii oo qabsan lahaa soo qabsaday arooskii meeshaa lagu burunteeyey aroos kaale aragaa loo dhigay wiilkii gabadhii wuu la aqal galay reerkooda la degay marka sidii saas u ahaayeen markuu wiilkii aqal galay gabadha wuxuu arkay inay waxba aqoonin oo maxaa la dhahaa ninba ay hore u arkino oo ay tahayba gabar nadiif ay tahay waayaa wuxuu yidhi cidda maxay qarinayeen adiga noloshiisu iska watay gabadhii sidii ku qabay adiga bilooyina ka soo wareegtay gabadhii way walacday wiilay dhashay ninkii wuxuu bilaabay inuu maxaa la dhahaa uu soo dhaxo wuu baxayaa maalmuu soo maqnaanaa wuu soo noqonaa wax la hadli kara ma leh adiga ninka kibir oo bilaabay wuxuu sameeyaa marka wuxuu qabaa asiga naag kale buu la saaxiib yahay baa meel u degan guri kale u degan oo guri u ijaaray markuu meeshaa imaadaba reerkaanuu ku kibrayaa gabadhi wuxuu ku bilaabay inuu garaaco oo dilo hooyada u imaada waxay tiri hooyo ninkaanitod ma ii fiicno wuu idhibooyaa diliduu iigu daray ninkan wax oo noo soo siyaadana ma laha haddana inuu i garaaco hadduu keenay ma u adkeysan kari hooyada waxay tiri gabadheeda la talisay waxay tiri kaale inta soo fadhiiso guurka markuu cusub yahay gabadhay waa dhib labada qofood ma isfahmayaan raggana waa iska dhib badan yihiin marka adiga karoonaw maxaa la adkayso guurkaaga hayso marka waxaas wax jar waaye waa laga baxaa waqti yar waaye anina koraankaa ogaana haye adiga sidii gabadha ku wada inuu gabadha mar kastaba dilo oo bahdilo uu nafta ugu keenay beebi yar haysataa beebigi wax ma ku siinaayo dilidoo ugu daray sheekadii farxay ka baxda marka adiga waa soo baxday waxay samaysay hooyada u sheegtay waxay tiri intaan kadib ma adkeysi kari inaan la hadlo waayo ani furitaan aan qaadanaa bis waxay tiri gabadheeda nafta ma iska qaadayside haddeeba sheekada meeshas marayso saan serious u tahay waa in aan maxaa la dhahaa wax ka qabsano wiilkii u tagto waxay tiri wax makuu sheegaa zakariya ani adiga sii wadi karno noloshii oo saan ani kuma noolaan karin noloshaan garaacid iyo maxaa la dhahaa iyo bahdilaad iyo maalin kasta caay ma joogi kari ani tiri bis waay noloshaan aan meeshaan ku kala tagno waay markaasaas ay dhehaysa asiga iyadani reerkaanetood lacagihii way dhammaadeen wax lacag kama soo harin lacagtii oo aabihii arooskiyaa lagu dhameeyey iyo raashin iyo ninkan mar kastaba inuu wax dalbado mar kastaba lacag inuu qaato inuu ku ciyaaro gurigii iyo lacagtoodii marka lacagti way dhammaatay marka reerka dhanba waa usoo uraya ninkan maba rabiba saas maa rabtaa u yidhi diyaar u yidhi furitaan lemaho diyaar maxkamada la geeye furitaankiyaa loo soo sameeyey warqadii furitaankiyaa la siiyey gabadhii ninkii gabadhii saasay ku wada hadeen maadaama meesha lacagna oolin wuxuu ka qabanaya male reerkii ma rabyaba wuxuu aaday gabadhi kale oo gurigu u ijaartay uu guuray meeshuu aaday saas noloshada sida ahayd maalin maalmaha ka mid ah gabadhii waxay wiilkeeda siisatay weysay ninkaanetod maxkamaday geysay way soo dacweysay waxay tiri wiilkaan saa iga dhalay maxaa la dhahaa waxaan u baahanahayne nafaqadii cunuga la sii lahaa inuu iska dhiibo ninkii wuxuu bilaabay dowladda waxay ku qasabtay in uu maxaa la dhahaa ninkaanetod beebigaas caanihii la sii lahaa inuu dhiibo marka qasabaa lagu qaaday ciri dhul inuu keeno hadduu keeni waayne dowladda u imaanayso marka wixiyaa ku adkaadeen noloshiyaa ku adkaatay markasta lacag inuu dhiibi waaye hadduu dhiibi waaye boliisa uu imaanayo adi ninkii wuu dhibtooday adi maalin kamid ah gabadhii way soo baxday hooyadeed waxay tiri hooya meelaan gaaraye kaale maxaa la dhahaa cunuga ii qabo hayee tiri cunuga u dhibata ayaydi gabadhii ma balahaybo habeenaa la gaaray ma soo socoto
taleefankeedaa la wacay, wax qabanaya malaha. waa la yaabay, war intay ka baxda gabadhi, war beebigeeda intuu iska jooga intay aadi kartaa gabadhay miskiinta aheyd, ayadaba waa yar tahay. adiga habeenkay ayeeyadiisaasi ku seexatay, walwalkaasi habeen ku seexatay. markuu waagi baryay way baxday, booliiskii usoo sheegtay. waxay tiri gabadheedaan la ahay, siday shalay iga tagta waaye. waayahay waxaa la dhahay warqadan buuxi, waxaad ku qortaa gabadhaadii xaalkeeda siduu ahaa, wax dhan ku qor. waxay ku qortay magaceeda, da-deeda, meesha degneed, inay cunug dhashay, inuu nin qabi jiray Zakariya la yiraahdo, ninka inuu furay, wax dhan. iska baxa la dhahay gurigaaga tag, anagaa raadinayno, ninka adreeskiisii wax dhanna siina soco. way baxda hooyada gurigeeda iska aaday shaqadoodii. marka booliiska meesha ka qabsadeen. Zakariya loo yeeray, booliiska loogu yeeray. markuu yimid waxaa la yiri ma aragtay, mayuu yiri goormay kugu dambeysay, mar hore wuu xidhan u sheegay, ani ma ogyo yiri, mana ka warhaayo. alaa ii taxal waxaa la yiri ogsoonow way maqan tahay xaaskaagii hore oo beebiga ku haysay, waa la la-yahay 24 saac kasoo wareegay inta la-yahay. marka la soco, iska bax, laakiin nala soco. booliiska waxay isweydiiyeen, ayna ka yaaban yihiin ninkan Zakariya sidoona u kala jeclaan gabadh inay joogtay in kale. adiga arrinta meeshaas iyadoo marayso baa maalin nin ka qaraabanayo meesha qashinka lagu gubo ama qashinka magaalada meesha la geeyo, nin ka qaraabanayo meeshaas baa meel dheer wuxuu ka arkay. waxaa u malaysid ilmaha waxay ku ciyaaraan oo kale, madax oo boombala camal, waxaa u malaysid meel dheer oo kasoo arkay. markuu usoo dhawaaday, gacanta uu la galay, wuxuuna noqday badada uu noqday. naxtin madaxii meesha ku tuuray, wuu cararay. booliiskii uu wacay. booliiskii wuxuu dhahay iga soo gaaray meeshaanitood qof madaxiisa yaalo. booliiskii yaa imaaday. madaxaaba go-an meeshaan, laakiin madaxa waa loo jeedaa inay haweenya timihii wixii dhan, laakiin ma la garanaya qofkuu yahay. sababto ah magaca wejiga dhan waa la baabi'iyey. wejiga waxaa lagu sameeyey dhowr jeera, waxaa lagu garaacay dhagax culus baa dhowr jeer lagu garaacay si oo u dhimo aragtida qofka saan loo garanin. marka iyadoo arrintaas meesha marayso, meesha fatish loo galay, booliiskiina la isku wacay, meesha la wada xiray, meesha la wada fatishay. waxaa la haray, waxaana la helay dhinaci kale korka, qaarka dambena haddana waa la helay. markuu ka tagay qofkii meeshaan keenay wuu gubay. wuxuu ku gubay qoyaani ahayd, laakiin meesha si fiican qofku muu gudmin, laakiin wuu gubay. hilibkii waa dambeeyaa weli. qofkii waa la fahmi karaa inuu maxaa la dhahaa qofkan qofku yahay, qofkiis haduu yimaado wuu garan karaa. marka saas iyadoo tahay waa la soo qaaday madaxii maca korkii waa la isku soo qaaday, meelaa la keenay. hooyadii xaafaddaa la fartagoo la fiiriyey, yaa dadka maqan yihiin, gabadhan in la raadinoyaa la sheegay, gabar la raadinoyaa la sheegay. qofkaanitadna waa loo jeedaa inay gabar yar tahay. waa la soo qaaday. hooyadii wax raadinaysay iyo wiilkii qabi jiri baa la isku wacay, labadooda la keenay stationka. waxaa la dhahay haddii horta koo waxaa la tusinaa la dhahay ninka gabadha qabi jira la tusinaa, because waxaanitad wax ay hooyada arki karta ma, islaanta miskiinta waa yeelka waxaan ma la tusin karo gabadhii inay tahay in kaletood. wiilkaa noo fiirinayo, wiilkaa noo soo sheegayo. booliiskii wiilkaa la kaxeeyey. hooyada waxaa la dhahday inta iska fadhiiso, arrinta waa kula soo soconayseena, arrinta aad ay culus tahay, halkaa fadhiiso. waayay tiri meeshay fadhiisatay. marka Zakariyihii qabi jiray gabadhii iyo booliiskii qolkiyaa la geeyey. qolkii marka la geeyey oo la tusiyey gabadha, wuxuu yiri mayo yiri alxamdulilah, oo yiri gabadhan ma ahan xaaskaygii hore oo cunugii ii dhashay, qofkan maba ah mana u eko, alxamdulilah way nooshaa, meelahan jirtaa, way iska soo noqonaysaa maalin maalmaha ka mid ah. hayaa la yiri. hooyada u imaade wuxuu yiri alxamdulilah, ma ahan qofraan, ma ahan qofkaan itod, mana u eko, mana u dhawo. marka soo baxa gurigaan ku geynaa. marka hooyadii waaba faraxdayba, waxay tiri alxamdulilah, gabadheeda deeba qofkaan dhimata la fiiri ahayn, alxamdulilah qofkaan dhintan allah u naxariisto, gabadheedna way ii soo noqonaya, meeshay jirta way kasoo noqonaya, way ii nooshahay. bes intayna bixin ka hor booliiska wuxuu weydiistay in uu isbitaalkaas ay tagto oo DNA laga qaado. adiga islaantii DNA laga qaaday, way iska baxday, gurigeedaa la geeyey. marka maalmo ka bacdi islaantiyaa loo yeeray. waxaa la yidhi kaalay, waan ku baahanahay, noo imaaw. way baxday kaligeed, way tagtay. markay tagtay baa waxaa la yidhi, marka waxaa la dhahay waa la tusinayaa hooyada gabadhii horta waa la tusinayaa, si aan DNA-gan aan helna suu isku egyahay, iyo ayada siday u fahmayso oo wiilkaasna u fahmi waayo, si oo ogaano gabadhaa la tusinayaa. waa la kaxeeyey, meydkiyaa la tusiyey. waxaa la dhahay fiiri meydkaanitod, gabadhaada inay tahay in kale iska fiiri. waayay tiri, waa loo feeday, waa la tusiyey.
waxay tiri meeshii baroortay gabadheedii waa tiri wejiga asoo ka jaban yahay qofka boodhigiisa waa garan kartaa. hooyadii meeshayba barooratayba. waxaa la yiri waa kaa hubinaynay DNA-ga maalin kaa qaadnay iyo qofkan DNA-giisa waa isku mid. haddana markaaba aragtayba horaa ka fahamta gabadhaadii. maalintii waxaan kugu diidnay inaad fiiriso waxay ahayd in aanan shock kugu dhixin wax aan la hubin inaa adigana maxaa la dhahaa kuwa washinta aan diilayna oo weli aan waxayna urisa si aan hore ugu sii raadsano. marka waxaa la yiri marka Zakariya ninka la dhahayo oo gabadhaada qabay muxuu inkiray adiga waa fahamtee muxuu u inkiray qofkaaneytood intaas sana is aqbeen wuu fahmi kareen. hala baxa la yiri la soo qabto ninkii la soo qabtay wala soo xiray stationka la keenay. kadib markii la xiray booliiska waxay dhaheen inta noo joogo hadda waxaan soo baareynaa dhaqdhaqaaqiisa iyo wuxuu sameyn jiray. ninkii stationka lagu xirtay waa la dhaafay waa la baxay. waxaa la fiiriyay ninkan wuxuu qabanayay gabadhan 5 maalmood maqneed maalmihii ka horeeyay muxuu qabanayay. ninkan caadiyan wuxuu wadan jiray bishkuleeti. marka gaariyo usoo badishtay marka ninkan maalmihii dambe ninkii wuxuu bilaabay inuu gaari wadwato oo meelaha yimaado. marka gaariga muxuu ku qabanaya waa marka ala ay xal booliiskii way soo fikireen gabadhii markii oo la qaaday oo loo geeyay dhakhtarka loo geeyay oo la soo baaray waxaa la soo ogaaday halaha jeermidida lagu dhuftay sida loo dilay gubniinkii wixii dhan inay soo qorteen bay gaarigiin oo wata ay soo qorteen bay wiilku ula imaadeen. waa la kaxay wiilka waxaa la yiri soo fariis halkaan miisa la soo fadhiisiyey meeshaasaa dhagaha laga raacay. waxaa la yiri nin yahow gaarigaasaa wadatay markaa gabadha qaadaysay maalinta la weynayay gaarigaasaad ku qaaday xaafadda jidka aa maraysay kaamiro ku taalo aa ku qabatay adoo gabadha dhinacaaga fadhiso. marka warka caddeeyaa la dhahay. markuu ogaaday meeluu ku fakanayo inaynan jirin meeshii warka ku bilaabay wuxuu yiri waan wacay waa soo kaxeeyey waa soo raacnay markaan maraynay meeshaanitood oo qashinka lagu daadiyay markaan maraynay baan waxaan dhahay musqulaan u baahanahay banaankaan galaa. marka waa soo deg oo yiri iidan waxaan dhahay soo deg xoogaa hawa iska qaado. intaan saas usoo wareegay baa mindi ulu soo baxay aan ku dhuftay madaxa kaga dhuftay dhowr jeer dhabarka kaga dhuftay dhowr jeer dhulka markay ku dhacdane qashinka meeshiisaan geeyey qaarka dambena waa ka gubay. maxaa la dhahaa madaxane dhagax baan dhowr jeer ku dhuftay si aan loo fahmin. marka saasaan sameeyey. adiga sheekadii dhan wuu qirtay ninkii wixii dhanba wuu u sheegay. bis waxaa la dhahay maxkamada la soo saaray wadankaas Tunisia waxaa la dhahay waqtigaas hadda ma ogi waqtigaas waxaa la yiri way joojiyeen dadka inay dilaan laakiin waxay suubinayaan qofkii la xiro in ilaa oo ka dhinto oo meesha ku jiro taasaa loo go'aamiyey. marka saaxiibayaal maanta intaasaan ila wadaagayay dadka qaarkood ma la aamini karo. hadda ninkan hooyadan waxay ka rabtay gabadheeda inay maxaa la dhahaa nin u hesho gurigana inay nin u yeeshto ayaga ninkaas maxaa la dhahaa ay kafaalo qaadaan asi laakiin ibn aadan fiican kuma soo bixin meeshii uu fadhiistay lacagtiina wuu ka cunyay gabadhina wuu ka garaacay ugu dambeyntina wuu dilay. marka qaarkood ilaahay la aaminaa fiican oo dad aan la isku dhiibin. ilmahaaga wax barso weynayso rabbi isku xir ilaahayna ma ku qadinaayo dad fiican ilaahay kugu soo aadinaa laakiin nasiib maxaa dhigi kartaa kaas nasiibkooda oo noqday. marka saaxiibayaal haddii oo qisadooyinka aan idiin soo gudbinayo maalmahaanitood aad ugu hesheen maxaa la dhahaa subscribe-ka ii saara thumbupka iyo sharekan iigu dadaala aad iyo aad waa mahadsantihiin. maxaa la dhahaa ramadaan mubaarak. rabbi subxaana watacaala waxaa ka baryaynaa raxmadiisa waasic inuu nagu badbaadiyo adduun iyo aakhiro jannata firdaws aclaana nagu wada geeyo sidaan wada dhannahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.